soo dhawaada channelkan Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa dhinaca Bitcoin iyo cryptocurrency maalin kasta xag u marayo. Hada channelka cusub tahay like subscribe taabo si qofka loo arki karo videogan uu faa'iideysan karo. Aad ba mahadsantihiin. Anagan waa maalin kale waxa aragtaan chatkii waa aragtaan weynka arka waa coins kidana waa kuwan. Waxa aragtaan maanta Bitcoin uu yara dhacay markaan wada hadlaynay 19,000 buu ahaa maanta wax maraya 18,000 wax. taa waxaa keentay wax kale maaha economic baa yara dhacay dadkii waxay filayeen inuu kan uu kacay doono meelaha bishan September imika soo socotay ilaa Agosto laakiin uu kici waayay wixii waa sii qali garoobay dagaalka kale baa socda Ruushka iyo Ukraine alaabii leebisay baa qali garoobay marka waxa soo yaraan $1,500 u dhacay oo meelaha $1,000 u dhacay laakiin imika iska caad u soo noolaanaya hadana laakiin iminka wax weyn dasa uma dhicin yarun buu dhacay laakiin waxa marba dhacmarna uu kaca hadaan iminkaan eegno Bitcoin ka walba xag u haan jiray hadaan eegno bishii ugu dambeysay uu fiicnaa waa inta arkay 20,000 buu marayay markaas intaas uu dib u soo dhacay intaas markuu intaas uu dhacay markaas inta markii uu kacay marka waxaan waa iska caadi waa wax dhaca laakiin wax markuu koraya wax baxayo tagay maaha marka waa hadaan iminka eegno maanta ugu dambeysay last day hadaan eegno muddo kaarka intaas uu ahaa intaas markii dib u noqday marka uu socdo uu dhacay waxaan wax kale waxa keenaya wali waa wax cusub wali wax saamka dadku wax soo yaqaanaan maaha laakiin wax maalin kasta koriyay iminko laga wada hadlayo macala Afrika joog Europe joog waa wax technology oo maalin kasta koriyay marka hada waa ta adeegno balan dhinaca website yaasha xagga imka wararka socdaan oo wadayna wada akhriyna hay like subscribe to channelka cusub tahay channelka waa channelka qori af Soomaali ku hadlaya ee ka hadlaya chatka sheegay maalin kasta xagga cryptocurrency Bitcoin ka marayo hay desk maalin kasta oo website-ka CoinDesk ee dhinaca Bitcoin ka hadasha marba warba keenta maanta warka wax laga hadlay waxa weeye waxa company la Telegram ee sida WhatsApp ku kalaaba imika isticmaali doonta Bitcoin marka qofka haduu lacag bixinayo haduu wax tiriyo message haduu dirayo wuxuu Telegram buu ka isticmaali karaa dhinaca Bitcoin marka waxaan kasta waxaan ka hadalnaa maalin kasta waxaan ka hadalnaa combination cusub ee dhinaca Bitcoin ka galaya si uu isticmaalaan systemka si marka lacag la isu dirayo wax si uu isticmaalaan marka company weyn waxa maanta bilowdayadana marka waxa lagu leeyahay Pavel Durov ninka CEO-ga meesha haysta the Telegram has hinted at a serious Web3 enhancement coming to a popular message platform. Durov talked about the benefit tradable username and channel links might have a future create a marketplace where users could use them in the same way marka waxa weyn oo war cusub weyn hadii koonu deemka ku sabiireen WhatsApp ku sabiiri doonta marka marba inta soo kombinaayo oo weyn ba ku sabiiray oo howlgaliya iminka si dhinaca Bitcoin ku isticmaalaan tii kaban ma inta soo kombinaayo marka wada hadalnay waqtigii hore marka waxay sheegaysaa daxagumka Bitcoin marayo isu maalin kasta uu karayo waxa uu leeyahay inta hadaan akhriyo waxa uu leeyahay it tone has able to achieve this result imagine how successful Telegram with 700 used to double million qof baa isticmaala marka users could be if reserve a using group and channel link in action kataas waa war weyn adaam kala arko waxa sheegaysan wax tusaasu maalin kasta Bitcoin iyo cryptocurrency dhan uu korayo oo ay deenanay wax fudud aan ahayn oo dadku maalin kasta popular yihiin oo marka wanaad aduna la socotaa wanaad akhrida imika article kan ku soo qoriyay mesh channel xaq wasan ku soo qoriyay soo akhrisatid ugu faa'iideysatid laakiin waxaan sheegaysaa waxaan gaabinayno maalin kasta korayo marka waa ta maanta inta Sunday wada eegnay hadana waa aad ba mahadsantidiin channelka ku cusub taasana oo sheegay like subscribe taabo maalin kasta warka cusub baan ka wada hadalnaa xagga wax marayaan waa tahay wayna bari